sanad guuradii 14aad ee maalinta calanka dalka Itoobiya ayaa maanta lagu qabtay hoolka Qaryaandhoodaan ee magaalada Jigjiga. madasho ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya deegaanka Soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. maalinta calanka waxaa loo aasaasay in xalaha qowmiyadaha dalka ay wadaagaan la xoojiyo maadaama qaabka federaalka loo fuliyay markii hore ay ahayd qaab kala fogeyn oo dalku inuu jirin oo wuxuu dalku ku kala duwan yahay oo kaliya uu laga hadlayo kala diibaanahay kala afqaanahay kala kanaanahay wuxuu kala saaray waa xaqiiqo inaan dalna jirin haddii astaamo mideeya aan la samaynin waxaa la yidhaahdo qaran inta wuxuu u qaybsamaa laba u qaybsamaa qayb waa qayb wax muuqda waa dad waa dhul waa webiyaal waa buuro waa waxyaala noocaas oo muuqda oo geographic la garanayo oo dhan isugu yimid waa geographic qaybta kalena waa waxyaala aan la taaban karin oo aan muuqan oo ah waxyaala la wadaago oo astaamo la abuuro abuurka kadib marka la abuuro dadku ay ka dhaadhacdo in mideynayso ahween calanka ka mida maalmaha la xusaa ka mida guulaha la sheegtaa ka mida maalmaha bulshada ee xusaa ka mida waxyaalahaasna wax maaragtay nation waxa la yidhaahdo ama dal waxa la yidhaahdo isku soo dhaweynayo marka qaabkii loo fuliyay federalismka dalku 27 sano u dambeeyay haddii qofku yahay qof soo Itoobiya jirto aan rabin sida kooxda TPL oo kale qaabkii loo fuliyay xukun khadeen uu la kala gudoodi kara jeedada uu kale yahay baa muhiim duu u arko dalkan dad maaragtay isku weysto oo dhibaatooyin way kala tagaan qof ka duulayo aragtida uu ka qaadanayo astaamaha la sameeyay iyo qaabkii loo fuliyay federalismka iyo haddii uu arko dalkan inuu wada joogo dambaa ku jirta way kala duwanaanaysaa qofka meesha ka kacay ku xiranta laakiin qofka dalkan ha jiraan uu garan karaa in dadka loo tuso qowmiyadu inay iska soo jeedaan iyo dagaalamaan in wax loo wadaagin xabad wada dhexeeyaan taariikhda kala duwan in la yiraahdo iyadoo maadaama xaqiiqo jirta tahay in la beereeyo ayna ahayn wax jira ay tahay federalismka uu muhiim u yahay dalka haddana wax mideeyo oo dadka isku soo dhaweeyo oo ay kaga gudbaan khilaafaadka marwalba muuqda ama kala duwanaanshaha wax mideeyo loo abuuro iyaduna waa muhiim marka maalinka xuska maanta oo kale arrintaasi ka duwan tahay fikirka midnimada in la abuuro ayay ka mid tahay aad iyo aad ugu faraxsan marka calaamada maanta dabada yaalla mid waa kii qaranka fikirka hadda aan ka hadlayo awgeed maanta maalinka calanka intii loo xusayo midna waa kii dowladda deegaanka Soomaalida oo isaga laftiisa la xuso u baahan maadaama god ugu tuuray laga soo saaray calanku waa muhiim astaamuhu way sheegaan calankii hore markii la bedelay mar kala la bedelay maahay fikir iyo himilo ayaa la bedelay markii calankii hore la bedelay hadday mar u tahay blue iyo jaale labaduba oo kala caadi marka loo xidho wax farqi ma dhexeeyo blue ha ahaato ama jaale ha ahaato laakiin ujeedada loo bedelay maynan ahayn kala ma ahayn astaan iyo isir sheegasho iyo tilmaam gaar ah oo laga cararayay marka oo loo arkay Itoobiyaanimada inay tahay waxa tahay laga cararo yaa loo bedelay kuwii bedelay ama sidaa u fahmaan ama sidaa balka bedelaan waxay dan ku galmay laakiin waxaan u aragnaa inay ahayd fikir laga duulay taana iyadoo mas'uuliyadda ku darno ayaa loo baahan yahay geesta kale waxaa ka hadlay afhayeenka golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Moole Ibrahim waxaana ka mid ah hadaladiisii marka uu qatar galo iyo midnimada shucuubta qaranka iyo qowmiyadaha Itoobiya maadaama uu calanku leeyahay muhiimad ayaa waxaa laga soo saaray bayaan iyo maalin u gaar ah in la xuso maalintan oo kale maanta aan joogno isniinta ugu horeysa ee bisha daqiiqda koodeeda in sanad walba aan xusno calankeena mudan yaal iyo marweyn calaamo kala duwan ayaa soo maray dalkeena Itoobiya balse calankaasi naanta horumarka barwaaqada iyo nidaamka maamulka
suuban federalismka waxa weeyaan kan hadda aan haysan. Si kastaba ha noqotee sanad guuradan ayaa noqonaysa sanad guuradii 14aad ee la xuso calanka dalka Itoobiya iyadoo la filayo in deegaanka Soomaalida uu dhawaan ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha hogaamin doona 5 sano ee soo socota iyo waliba golayaasha golaha wasiirada uu soo dhisan doono. Xidin Aadan Maxamed Xidin Xarago telefishinka RTN magaalada Jigjiga. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus. marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta. ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara. ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawlaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. in ka badan $126 oo caalamka ah ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shakhsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.